hibo soo dhawow waxaan ka hadlaynaa waa maxay carqaladda hortaagan Somaliland aqoonsigeeda dabcan de in la falanqeeyo weeye dabcan waa carqalad because 34 years been rabnaa inaynu kuraasidii aynu ku lahayn xaqa u lahayn international community inaynu fadhiisano marka maadaama Somaliland dimuqraasi tahay inaynu si public uga debate garayno carqaladaheena iyo waxyaabaha inagu hortaagan caafimaadka dimuqraadiyadda ayaa ku jirta because otherwise they inagu ma nihin totalitarian dadku ay cabursan yihiin ma nihin meel fadhido oo dhinac wada sacabtumasa marka soo dhawow hibo maxay kula tahay waxay carqaladda hortaagan سعيدو عرقلد ugu horta Siciido waan idin salaamay kulligiin Cabdifataax adiga iyo martida kale kula joogto oo dhan special Siciid waxa weeyaan de horta marka laga waa in la fakara horta hadii aynu feelings ka hadalno kana sidan yiri hebel baacayn kan yiri runta iyo truthka marka laga hadlo stability meelani ka jirin de horta recognition iskama imanayo recognition-ka waa loo dagaalamaa waa loo qalab kurtaa recognition ku wuxuu la mid yahay sida super power-ku maxaa loogu magacaabaa qof inuu super power yahay de waa arrin uu ka shaqeeyay waxaad eegaysaa imanka Mareykanka markuu la dagaalamayay Soviet Union-ka marka competition ka dhaxeeyay de siyaasadiisii oo dhan buu bedelay middle class buu abuuray waxa weeyaan de waxa jiray in dadka kambaniyada waaweyn multinational company-ga tax badan lagu soo rogay waxbarashadoodiiba investment galiyeen marka ninka Mareykanka iyo ninka Ruushki inay unity dad meel u wada jeeda taasoo kale ayay u dhacayaan waxaynu galayno maxaa la yiraahdaa waxaynu galayna de heshiisyadaynu galayno ma aha heshiisyo de national unity isla wada socda ay galeen Siciido hadii runta la eego de markaynu wadanka soo galay waynu islayn national reconciliation ma dhicin hadaf lama sameyn de wuxuu baynu dabtabooleynaa waxa weeyaan waa inuu straight ahaataa oo sida McDonald's marka soo gasho cuntadii miiska lagu soo saaraa for centuries la soo saaray inagu say waa maxay maalin walba nin baa imanaya dirqi baa lagaga dejinaya systemku jeebada ku qaadanaya de Siciido waa recognition waa la gareeya daas gaalada waa you earn it waa la shaqaystaa wadankaaga stable maaha dadkaaga unity ma haystaan dadkaaga middle class ma jiro marka wadanaan middle class jirin de dawlad ma jirto weeyaan dawladda oligarchs ka shaqaysa waa inaad middle class abuurtaa horta dad doonayso wadankan inuu saxmo oo systemkiisu gacanta lagu hayo oo ninka MP-ga noqonaya ay dadku soo dooran karaan because money baa keenta siyaasadda money lobbying baa la sameeyaa lobbying yaa keena de afarta qof ee lacagta haysta yada sidaad sayga ilaalinaysa wadankaaga baan saad sheegtay Siciido baan ma jiro lacagta money laundering waxa ku dhex socda waaba lagu dooraya madaxweynaha iyo systemkana doorto dhanba waa foreign maxaa sidaad sayga ilaalinaysa ma jirto de adduunkan imaka inta waka halkana la maray lacag baa la keenay yaa ku hadlaya marka systemkaagi daacad ma laga yahay dalkan no daacad baa jirin suuratu munaafiqiin baa ku sheegtay dad baa yiri muslim baan noo ku soo biiray dadkaasi maxay ka shaqeynayeen halka dadka ninka real muslimku lahaa ninkan waa walaalkay kiyo isagoo taajira oo lahaa ama qabiil soo haystay inuu qabiilada ka fiican kii kale la saaxiibay iyagu waxay ka dhaxwadeen dadka beel galay suurta munaafiqiin diinta lagu noqdaa marka rabto inaad adduunyada wax ka socda ama wacyigan nala socdaan kuwii aan munaafiqiinta waxay ka shaqeynayeen Siciido waxa la yiraahdaa anaga kan ka fadilan wareebel baa taa naga durkana soo ag fadhiisanine adigu cayn kana tahay hadda wax waa munaafiqiin marka inaga systemkeeni baa munaafiqadaasi ka jirta maanta sida dadka munaafiqiinta baan leeyahay kan hayga durko kan waa reebel laba qola collusion sameynayaan wadan kaba qabsano wadan kaba meel lama wado marka daacadnimaan jirin dad baan daacad ka ahayn systemka intaasan ku soo koobayaan daacad baan systemkan laga ahayn hadda la hor fadhiisto investigation hala qaado hala lagu cadeeyo dadka waxan hala soo dhigo badada oo in dad munaafiqiin inagu dhex jiraan aad baan waxaan su'aal ka weydiinayaa last question Taiwan waa wadan aynu imika muddo dheer xiriir la lahayn ma garanaysaa iyada colaad bayna inoogu qaaday Shiinuhu
oo had iyo jeer shiinuhu sidaad ogtay Taiwan wuxuu aaminsan yahay qayb ka mid ah tahay colaadii inoogu qaaday dagaaladan la ascaano dad badan baa waxay aaminsan yihiin in Chinese-ku qayb weyn ka yahay halkaasna dagaal inagula jiro Taiwan ilaa imika trade agreement iyo military agreement labada midna Somaliland lama saxeexan waa wadanka colaada inta leeg China inoogu qaaday waa maxay waxaan aynu Taiwan ka rabnaa hadii aynaan heshiis military iyo mid ganacsi midnaba aynaan la saxeexan Taiwan ya ka faa'iida ma shakhsiyaad baa ka faa'iida ay wadanka u joogtaa mise national interest bay wadanka u joogtaa maxaad isleedahay way hortaagantahay heshiis xagga militariga oo aynu maanta u baahanay waxaynu u baahanay ciidankeena in kor loo qaado tayadooda waad aragtay waxa hub la inoo soo urursaday waxaynu u baahanay tiknoolajiyada casriga ah sida drones oo kale Taiwanese way naga caawin karaan kumanyaal dhalinyaro bay inoogu tababar karaan sida drone-ka lagu dagaalamo wax badan bay Taiwan nala qaban kartaa taasi waa qodob kale oo xeen dhinaca ganacsiga Taiwan wax badan bay dhaqaaleena ka qaban kartaa oo wadan sophisticated oo wadan industrial oo wadan tiknoolajiyada meel aad u sareysa ka gaaray wax badan in la qaban kara laakiin dawladda Somaliland wali trade agreement lama gelin oo dhinaca ganacsiga sidaanay ugu la jirin dawladda Somaliland trade agreement cidnaba Ethiopia aynu boqolaalka milyan u diro trade agreement kula jiro Saudi Arabia inuu 5 milyan oo xoolaha sanad walba u diro trade agreement kula jiro ma la oran karaa xukuumadda Somaliland dad baa ku shaqaystay oo aan looguma tala gelin inay dad u shaqaysto maxaan ku idhaahdaa muwaadiniinta Somaliland ee dawladnimada doonaya oligarka aad sheegaysa bay u gacan gashay oo runtii doonaya iyagu inay benefitka dawladnimada ay ku shaqaystaan Ethiopia imika haddaad tiraahdo alaab yarge waa contraband waa lagu baaraya dharka laga saaraya waa wadanka aynu 560 milyan bil walba u dirayna dollar ilaahay deynuguma qaban waxaynu oran karaa Ethiopia albaabada aynu ka xidhi karnaa dawlad Somaliland oo inta Ethiopia hor fadhiisatay trade agreement baan idin galna hadii kale waxba idin ka qaadan mayno dee may dhicin Sacuudiga xoolaheena qaadanaya inoo ma xisaabsana inaynu inagu wax ka iibinayno it's not made in Somaliland ma xoolaheena waa Sacuudiya wax ka iibsanaya الجابر وان السعودية certification كيس السعودية عربي وكسو قاطي dadka qaar baa waxay yiraahdaan xamarna wuxuu ka siistaa shaabad Sacuudi wax ka iibsada Sacuudi Somaliland wax ka iibsada ma jiro qodobkan doonayo inaad diboy bal aan su'aashaada ku laana waxay tahay ma jirto arrin oranaysa اعتراف ma haysataan oo heshiis wadan lama gali kartaan arrintaasi ma jirto waayo haday taasi jirto Taiwan oo 192 dawladood trade agreement kula jirta oo kambaniyada adduunka ugu waaweyn lama falgasha oo aan UN ta kursi ku lahayn ayaa trade agreement wadanka doonta la gasha haday Taiwan u suurta gashay maxay inaga inagu suurta gali weyday inaynu trade agreement la saxeexano ma laga yaabaa in ay yani monopoly-ga ragga doonaya inay marketka monopoly ku haystaan Somaliland inay ka dambeeyaan aqoonsi la'aanta Somaliland oo aanay marnaba ogolayn inay Somaliland la falgasho caalamka oo xamar ina daba wada ninka Soomaaliya jooga hiboy iyo ninka Somaliland jooga ee ganacsatada ah wax loo wax u dhaxeeya ma jiraan waxa weeyaan waa masa there is no regulation between them ma jiro sharci oranayo waa dahabshiilowna muwaadin baatay hormuud ama ina jimcaalowna muwaadin ma tiida ajnabi baat sharci aan ka oranaya ma jira marka dhinaca regulation ka yaagtiyo shuruucda hiboy ma la oran karayn waxa ay u dhiseen gareysan in dad gaari wadankan ku shaqaystaan ay manaafacaadsadaan oo taasoo opposite ku ah in dawladnimo la hirgeliyo oo ay carqalada ugu weyn halka ka imanayso waliba halka ku soco سعيدو وارنتا horta dawladan cusubide waxyaabihii ay conditionka ka dhigtay waxa weeyaan wadankan investment keenayso oo waxan wax ka bedelayso laakiin haddaan wixii hore ee jiray dib u raacno de waxa weeyaan Siciidow arrinkani waa arrin ah ku talagal waa ogaan de dadkani laynoo dhiibay quraanka la yiri iqra akhriya oo fakara umad lagu amray bayno ahayn ma fakarno isma weydiino maxaa xamarna waynu isdhex soconaa
haddana waxa la leeyahay waynu ishaynaa recognition ma jiro ha hadlina eeg waxyaabaha ugu badan ee hargeysa ku arkay wax weeyaan alla lama mudaharaadi karo recognitionkii baa ku xidhan eeg dadkan siciido maskaxdii baa laga qasbaday gaaladu waxay tiraa dumping down dadka maskaxdoodii baa hoos loo dhigay gacmihii baa loo laabay dad cult personalities baa lagu yidhi idinka annaga idin safe garaynayna we're the saviors dad baa u hadla dadkan inay hadlaan oy fakeraan waxa la yidhi iska noolaada uun waxyaabaha maskaxdoodana lagu insult gareeya waxa weeyaan shaqaysta saawaan ku celceliyaa shaqaysta carabkan yimiba waa ka shaqaysanaye war adduunkan dowlad baa nidaamisa oo dadka tagaska ka yaraysa oo middle class samaysa middle classkii baa la baabinaysa oo shaqaabuur samaysa shaqaabuur dowlad baa waxa xitaa lagu qasbay dadkii small businesska lahaa baa lagu qasbay ku iibsada wax Somaliland shilling oo looga ilaaliyay inay dollar gacmahooda galaan sicida waa dadkan waxa weeye noloshii baa lagu adkeeyay way ka wada tahriibeen dhalinyaradii cadcadayda macnihii maskaxdooda furnayd brain drain baa lagu sameeyey deetana dad masaakiina meesha isugu soo hadhay waxa weeyaan waa wadan dadkiisii exile looga diray haddii la fakerayo dadka fakerkii baa laga qaaday sababta looga qaadayna waxa weeyaan waxaa loo sheegay aqoonsi baa maqan aqoonsigiina cid u dagaalamaysaa ma jirto waayo haddii aqoonsigii la rabo maraanay xamar awoodan lahayn baynu la soo noqon lahayne waxaan jirin national unity iyo nationalism iyo unified system si loo rangareeyo ma jirto kolba kooxun bayna qabsanaysaa I'm telling you dadkani waa divided dad baa ku dhex jira wadankan aan maxaa la yidhahdaa aan daacad u hayn oo wax aad baan ku aad baan kuu salaamayaa way aad baad u mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo maxamed deeq waa ka xumahay waad in badan baad sugtay raalli ahaw waa maxay carqaladda hortaagan aqoonsiga guud ahaan Somaliland ku soco aad iyo aad horta mawduucan waa mawduuc runtii aan aad anigu u danayn jiray oo dadkeenana aan arki jiray inaysan mataqaanaa kuba baraarugsanayn horta siciido waxaa su'aala inagu aqoonsi waa la raadinayaa aqoonsi baynu u baahan nahay okay aqoonsiga aynu u baahan nahay ma aqoonsi baa ka soo bilowmaya 1991 markii Somaliland ay madax bannaanideedii dib ula soo laabatay mise waa aqoonsi iyo sharciyad la xiriidha waxa weeye 1960 anigu maaragtay termkan Somaliland aqoonsi recognition bay u baahan tahay anigu inaad artaa ma aaminsani waana hadhow tolo ku sababeynaya waxyaabaha ku timi Somaliland hadii taariikhda dib loogu laabto 1960 26 June waxay heshay full independent adduunkana waxaa laga qoray inay tahay maxay ahayd walay self declared independent state oo waxa weeye de kamida dalalka adduunka Somaliland tashiidna kuma jirin Somaliland kuma jirin hadana shuruucda UN-ta eegno colonial territories-ki mataqaanaa waqtigaas Afrika waxa weeye gacanta ku hayay Somaliland laba article baan dadka u tilmaami lahaa walow ay adag tahay in la helo waan isku dayi doonaa bal haddana idii soo maaragtay diri karo labada article ee Somaliland maaragtay de identify garaynaya xagga UN-ta waa article 72 iyo 73 waa laba article oo tilmaamaya Somaliland yani qaabka ay maaragtay balahan يعني بروفايل كاين leedahay okay horta hadaynu niraano inka wadadan aynu raacayna waa wada inaynu aqoonsi u raadinayno